haddii aad tahay dadka aadka u xiiseeya sheekooyinka cabsida ah soo dhawow kani waa janalkaaga fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir waxaan doonaynaa inaan gaarno 100,000 oo subscribe mahadsanid tani waa maryam habeen walba waxa ay ku riyootaa riyooyin aad u cabsi badan misena aad u foolxun habeen walba waxay aragtaa wiil yar oo ku fadhiya kursiga qolkeeda u dhex yaala wiilkaasoo u eg mid aad u foolxun aadna waa cabsi badan madaxiisuna uu yahay mid kala jeexan qofkii arkana uu aad uga cabsanayo maalin maalmaha ka mid ah iyadoo ka adeeganaysa supermarket ayaa hal mar waxay horteeda ku aragtay gabar yariis ah gabadhii ayaa weydiisay jimmy ma aragtaa maryam oo yaabanaya waxay tiri jimmy yuu yahay gabadhii yaristeeda waxay uga jawaabtay jimmy waa kanaad habeen walba riyada ku aragtid aniga xitaa sidaas oo kale weligii waan ku arki jiray laakiin waxaa jiro hal xal oo aad uga badbaadi karto xalka muxuu yahay tiri maryam waxayna tiri gabadhii yariista ahayd xalku waa inaad jimmy weydiisid 2 su'aal oo keliya balse haddii aad mid saddexaad weydiisid waad dhimanaysaa maryam waxay tiri su'aal sidee ah isna gabadhii yarta ahayd gebi ahaanba maryam waa ay weysay yaab iyo ama kaag meelaha ayay fiirisay bisna cidna ma joogto waxay isweydiisay gabadhan sidii ku ogaatay riyooyinka adiga ku riyootid maryam habeenka ayaa la gaaray waayna iska seexatay markii xilliga riyada la gaaray ayay aragtay wiilkii yaraa oo horteeda fadhiya waxay weydiisay jimmy miyaa tahay madaxa ayuu u laxay markaasa waxay ku tiri yaa sidan ku galay waa la idilay dhagax ayaana madaxa igaga dhuftay ayuu yidhi markaas weydiisay yaa kaaga dhuftay waa ay naxday waxayna soo xasuusatay inay su'aal saddexaad weydiisay iyadoo aad u naxsanaya hal mar riyadii ka soo booday waxayna ka walaashay albaabka in lasoo gargaraacayo la rabana in lasoo furo afka ayay qabsatay waxayna ogaatay khalad weyn inay gashay inay badbaadana ay aad u adag tahay subaxii markii la gaaray iyadoo cabsidii xalay ku taagan ayay hal mar tvga iska daaratay misana waxay aragtay waxaysan weligeed filaynin waxay aragtay gabadhii yarista ee supermarket ku arkaysay oo tvga laga sheegayo inay gabadhan dhimatay isbuuc ka hor yaab gabdhan keliya waxay arkaysa maryam 2 maalin uun ka hor yaab iyo amkaga ayaa ka soo haray maryam iyadoo la yaaban waxa ay arkayso waxayna dareentay waxaan jiro wax halis inay yihiin waxayna soo aaday gurigii gabadha hooyadeed ayaan waxay ku tiri gabadhaada sidee u dhimatay maxaase ku dhacay mayna kuu sheegtay wax arrin ah hooyadii ayaa waxay ku tiri qaabay u dhimatay anaga xitaa moogin laakiin waxay sheegtay in xilliyadii u dambeysay ay arkaysay riyooyin aad u fulxun hooyadii ayaana waxay tiri waxay qortay qoraalkan markii u dambeysay waxaana ku qorneyd diilkii ka dhacay qasrigii dahsoonaa maryam waxay bilowday inay baarto qasrigaas dahsoon balse waxay meeshii ku aragtay qiso aad u cajiib ah qisadaasoo ah waxaa jirtay qoys ku noolaa qasri oo ka koobnaa 3 qofood wiil ay hooyadu dhashay iyo ninka hooyada qabay ninka hooyada qabay waxa waa nin aad u foolxun maalin maalmaha ka mid ah waxa uu soo kaxaystay wiilkii yaraa oo guriga joogay oo lagu magacaabay xilligaas Jamie wuxuu ku yidhi halkan istaag odaygiina cunugiioo meesha taaganaya waxuu kor kaga soo taagay dhagax aad u weyn odayga wuxuu waa mid aad u xun cunugii yaraana halkaas ayuu ku dhintay oo madaxa ayaaba kala dilaacay odayga waxa waa mid aad u xun wuxuuna mar walba sigaar ku dulcabi jiray meeshii uu cunuga ku dilay niciib uu qabo wuxuuna ahaa mid aad u qosla xilli walba way yaabtay gabadhii maryam ahayd habeenkii waa ay seexatay balse albaabkii ayaa markaan loo soo gargaraacaya oo riyo loogumaba imaaninba oo si caadi ah ayuu jimmy ugu yimid maryam waa ay cabsatay jimmyna gudaha ayuu u soo galay isagoo wata mindi maryam way cabsatay waxayna tiri walaal iska kiitaa aniga mayo qofka adiga ku dilay maxaad iga doonaysaa jimmy hadalkeeda waxba kama soo maqan markaas amar waxay ku tiri waan ku soo aargudayaa jimmy markuu intaas maqan waa uu istaagay markaasuu yidhi waxaan ku siinayaa 3 maalin oo keliya maalinka afraadna ku imaan doonaa kadibna halkaas ayuu ku qarsoomay jimmy maryam aad ayay u sii cabsatay waqtigan waxay dareentay inuu aad ugu kooban yahay 3 maalin oo keliya ayay haysataa waa inay bilowdaa raadinta qasrigaas meesha uu ku yaalo way soo baxday qasrigii ayayna soo aaday waxay ogaatay in ninka intii ay sheekada ku aragtay uu siduu sameeyo
weli uu sigaarka ku dul cabo meeshii wiilka uu ku dilay. Si fiican ayay noola qabsatay, waayna fahamtay ninkaa shaxdiisa iyo xilliga uu meesha soo istaago. waxaa la gaaray habeenka ugu dambeysay, ballantuna ay ahayd in ninkaasi soo disho ama ay u soo argudo wiilka yaraa. Odaygii waa soo baxay, wuxuuna yimid meeshii uu wiilka ku dilay si uu sigaarka ugu cabo. isagoo meeshii taagan ayay Maryam korkiisa waxay ka keentay isla dhagaxii uu ku dilay Jimmy. halkaas ayna isagii madaxa uga dhufatay. halkii ayuu ku dhintay odaygii aadka u foolxumaa ee dhibka badnaa. waayay oysay Maryam maadaama ay khalad weyn samaysay qof ay dishay. gurigii markii ay timid iyadoo murugsan ayaa waxay aragtay kursigii oo uu saaran yahay ubax aad u qurux badan oo gaduudan oo ay la macno tahay mahadsanid. habeenkaas ayayna ahayd habeenkii ugu dambeysay ay aragto wax riya ah oo foolxun oo ku saabsan Jimmy. si fiican ayayna u nasatay. halkaas ayayna ku egtahay sheekadeenii maanta. fadlan haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir adigoo channelka saaraya subscribe. mahadsanid.